bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada Nuursha Academy. cashirkan waa cashirkii 10aad waxaan ku qaadanaynaa shaqal dheer. cashirka hore waxaan kusoo qaadanay shaqal gaab wuxuu ahaa hal xaraf, laakiin hadda waxay noqdeen laba xaraf. markii hore waxay ahayd a, hadda waxaa kusoo darsantay a kale. marka laba markay noqdaan waxaa loogu dhawaaqaa a. markii hore waxay ahayd e, waxay noqdeen laba e, waxaa loogu dhawaaqaa marka e. markii hore waxay ahayd hal i oo i aa la dhihi jiray, hadda waxay noqdeen laba i, marka waxaa la dhahaa i. markii hore waxay ahayd hal o, hadda waxay noqdeen laba o, oo awal waxaa la dhihi jiray o, laakiin hadda waxaa la dhihi doonaa oo. yacni waa la jiidaa, xoogo waa la yara jiidaa si yacni loo muujiyo inay tahay shaqal dheer. okay, markii hore waxay ahayd hal u, waxaan dhihi jirnay u, laakiin hadda waxay noqotay laba u, marka waxaan leenahay u. okay, marka si caadi aan u akrinaa, isla socod wanaagsan. a, e, i, o, u. aan ku celi mar kale, waa a, e, i, o, u. a, e, i, o, u. waxaan rajeynaa inaad fahanteen. marka hala soo qoro sida cashirkii hore oo kale. guulaan idin rajeynaa dhammaantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.